lafta gareen madaxweynihii hore dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan xoreynaya oo gacanteedii ku soo celinaya koonfur galbeed hadallo culus oo dhulgelin siyaasadeed dhaliyay kaasoo ka yimid madaxweynihii talada lagala wareegay cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maxay tani uga dhigan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee madaxweynaadkiisa gabagabada ku dhow muddo bilaah ayaa laga joogaa markii xukunka awood lagala wareegay madaxweynihii hore dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kadib duulaan ay si wada jir ah u qaadeen ciidamo federaal iyo maleeshiyaad mucaarad oo ka soo jeeda koonfur galbeed balse taageero ka helayay dowladda federaalka si kastaba lafta gareen madaxweynihii hore dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa hadallo culus ka dhawaajiyey cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa waraysi uu saacadihii lasoo dhaafay bixiyey kaga hadlay arrimo waaweyn oo xasaasi ah kuwaas oo la xidhiidha maamulkii uu xukumayey ee lagala wareegay ee koonfur galbeed balse arrinta hadalhaynta badan dhalisay ayaa ah kadib markii lafta gareen uu ku dhawaaqay uu si cad u sheegay inuu weli yahay madaxweynaha saxda sharciga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed lafta gareen ayaa sheegay in si sharci ah loo doortay 28 bishii Maarch sanadka 2026 sidaas darteeda nidaamka xilligan ka jira koonfur galbeed uu yahay mid magac u yeel ah waxaana horey u ahaa madaxweyne waxaan 28 Maarso la ii doortay madaxweyne mar labaad madaxweynaha koonfur galbeed marka waxaan ahay madaxweynaha sharciga ee dooran ayuu yiri cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen dhanka kale maadaama lafta gareen xukunkii kursigii uu ku fadhiyay dowlad goboleedka koonfur galbeed awood loogala wareegay misana uu lafta gareen sheegay in weli uu yahay madaxweynaha sharciga koonfur galbeed haddana dhinaca kale wuxuu lafta gareen shaaciyey war weyn kaasoo ah kadib markii uu ku eedeeyay dowladda federaalka in ay maamul aan sharci ahayn ka dhistay koonfur galbeed sidaas darteedana loo baahan yahay in laga saaro oo laga xoreeyo halkaasi inkastoo dhammaadkii bishii Maarso ay dowladda federaalka oo garab ka helaysa maleeshiyaad ka soo jeeda koonfur galbeed ay talada koonfur galbeed la wareegeen haddana waxaa jiray ciidamad u tiro badan oo ka goostay koonfur galbeed kuwaasoo taageero u ahaa madaxweynihii xilka laga tuuray ee lafta gareen ciidamadan oo ku sugan xilligaani gobolka Gedo iyagoona halkaasi ka wada dhaqdhaqaaqyo hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaadkiisa sharciga ka dhiman yahay wax ka yar 3 isbuuc oo ku eegyahay 15 bishan May sidoo kalena khilaaf kala dhaxeeya mucaaradka oo marka ka sii dambeeyay cirka isku shareerayo iyadoo saacadihii inuu ka soo gudubnay mucaaradka ay ku dhawaaqeen in wixii ka dambeeyay 15 bisha May madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay u aqoonsan doonaan qof rayid oo shacab ah